بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورئيسيغان غاركا أن لا يلان دونو إن شاء الله عبد الرشيد علي الشعاع oo ka soo jeeda deegaanka Soomaali galbeed عبد الرشيد khadka Facebook ayaanu mar dhow ku soo xiri doonaa insha Allah waxaanu ka qayb qaadan doonaa ama uu qaadan doonaa qayb kamid ah shaashadan hadda aad iga daawanaysaan insha Allah waxaan jecelahay عبد الرشيد waa kan aan soo dalbo insha Allah باذن الله الكريم oo aan keeno xagga kamarada mar dhow ayuu maxaa ku xirmi doonaa arrimo badan oo maxaa deegaankaas ayaanu insha Allah ka wareysan doonaa عبد الرشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبا كل سلام يا ولا عبد المالك وأنكم ما سنتها ورئيسية بعض ما سنت هذه لفت هذا وين محا نسيسو وقتي محا ورئيسي ka qaadno ku saabsan deegaankaaga waxa weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah باذن الله الكريم inay maqlayaan dadka muxuu ahaayay khadka inagula jira inay maqlayaan baan muxuu insha Allah rajaynaynaa باذن الله الكريم waxa weeye qoraaladooda ayaan ka dareemi doonaa insha Allah hadii aanay maqlayn ayaan ka dareemi doonaa insha Allah qoraalada marka ugu horeysa aan maxay warbixin kooban maxay idinka siiyo عبد الرشيد waxa weeye waa Soomaali galbeed waxa uu ka soo jeedaa dhulkeena la haysto waxaanu ku nool yahay dalalka Yurub mid kamid ah ayuu ku nool yahay waxa uu inooga warramayaa iyadoo ay qaar kamid ah eheladiisu ay ku sugan yihiin dhulkii wuxuu inooga warramayaa xaaladda guud halka ka jirta عبد الرشيد in badan waxa uu wax ka qoraa deegaankaas ayuu wax ka qoraa oo bartiisa maxay Facebook ayuu ku daabaco aad booqan kartaan oo iminka maxay magaciisu uu ku qoran yahay insha Allah aad hadhowto aad booqan doontaan ugu horeyn waxaan doonaynaa عبد الرشيد inaan maxay wax ka weydiino ama uu inoo xaaladda guud ee Soomaali galbeed بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsan tahay cabdimaalik walaal iyo walaalaha kale ee kula shaqeeya dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa fursadda sharafta leh inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago dhibka walaalahood Soomaali galbeed ay ku sugan yihiin 10kii sano la soo dhaafay oo laga wada dareemay dhulka Soomaaliyeed iyo gobol walbaba waqtigan xaadirka ah xaaladda shacabka Soomaali galbeed aad bay u liidataa waxa weeye nin daalima oo ummadda Soomaaliyeed wada taqaano mujrima oo cabdiilay la yiraahdo ay ku salideen qolyahan Tigreega ee Itoobiya haysta ninkaas dhibkiisu gobol Soomaaliyeed uusan gaarin ma jirto waxyaalaha ugu dambeeyay waxa weeye qoomiyadda Oromada oo fara badan oo Itoobiya la degta ayuu colaad uga abuuray dad aad u badan baa la xasuuqay colaadaha oo Soomaali badan ay maqashay sida tii arrintaasuna waxay ku imaatay dulmiga iyo dhibaatada uu dadkii Oromada ahaa ee jaariyadaha iyo xamaaltada ahaa ee dhulka ku sugnaa uu qaxiyo u laayay gabi ahaan wuxuu ka xiray dugsiyadii quraanka lagu baran jiray oo dhulka lagama ogolo wuxuu xiray culumada xadiista barnaamijkan culumada in la dagaalamo dhowrkii sano ugu dambeysay diintaba uu soo waday hadda waxa ugu dambeeyay oo bishii 9aad sanadkii hore uu xiray Sheekh Cabdinaasir waxaa kaloo xiray Sheekh Axmed Garweyne waxaa kaloo xiray Sheekh Muxyidiin saddexda sheekhba waxa kaliya ku xiraya waxay tahay maxaa diinta dadka u baraysaan iyo tafsiirka iyo quraanka masaajidada uga soo jeedinaysaan waxaan kugu darlaa tacdiibka uu geystay saddexdan sheekh waa hadda indhaha si fiican waxba ugama arkaan
nidaamyada uu wax u cadaabo waxaa ka mid ah qofka baxbastaas inuu wejiga u geliyo marka weliba sheekh cabdinaasir oo 82 jira magaalada goldogob la yidhaaha ee mudug ku taalla marka waa sheekh aad loo yaqaano oo da'a wiilkiisa 10 sano u xiran yahay sheekh cabdinaasir bacdii uu geliyay madaxa ayuuna hadda indhaha si fiican waxba uga arag wadaadada kale sheekh axmed garweyne waa uu geliyay madaxa marka mushkilada meesha ka haysata dadka degan soomaalida kale inay dareento waa laga yaabaa laakiin waxaan dhihi karaa ama la isku raacsan yahay qof ka cadowsan the most cruel person adduunka Hitler iyo Stalin inuu ka daran yahay sida uu dadka u cadaabo dal iyo dibad iyo tacadiga iyo xadgudubka iyo jirdilka uu geysto wax qof Soomaaliyeed uu sawiran karo ama horay u arkay ma aha away dadka xabsiyada soo galay ama ku nool oo kaliya ayaa garan kara heerka uu gaarsiin yahay cadaabka jirdilka iyo dilka laga yaabaa adiga Cabdimaalik dhacdadii jaamacadda dad ee dadka lagu xasuuqay waa soo tirisay dad goobjoog ah abad wareysatay waxaa jira tacaddi ka xadiisan oo magaalo galaalka la yiraahdo yaa wuxuu ku dilay 48 saac dad kor u dhaafaya 180 qof oo haween caruur odayaal isugu jira magaalada magaceeda iyo goormay ahayd dhacdadaasi magaalada magaceeda iyo goorma galaalsha la yiraahdo magaalada taariikhdu 2012 bay ahayd niman askartiisa kamid ah bay jabhada oo neef wax ku yeeshay aagaas marka ciidankiisa wuxuu ku amray sida uu ii sheegay nin kamid ah taliyayaashii ciidankaas oo hadda soo baxsaday amarka waxaa lagu siiyay qof kasta oo ka soo horbaxa oo insaan rag dumar waayeel in la dilo tii ayayna sameeyeen dadka ay dileen ilaa 180 qof anaa soo qoray bartayda ku soo qoray magacyada 75 qof oo kamid ah oo helay waxa ku jiray caruur malcaamad quraan ama dugsi quraan dhiganaysay iyo macalinkoodii oo baasuka lagu dhuftay meelaha xasuuqyada ugu badan uu ka geystay magaalada guna gada la yiraahdo 40 qof baa hal maalin lagu dilay oo dadkii magaalada iyo tulooyinka u dhawaacay kaliya waxaa loo dilay oday asaga taageersan baa magaalada lagu dhex dilay lama waraysan dadka gabadh hadda joogta London degan walaalkeed oo marti ku ah magaalada socdaal asagoo safar magaalada martiyay gurigii rag dadkii lala baxay ku jiray waa lala baxay waa la dilay magacyadooda dhow way tirsan yihiin magaalooyinka uu aad ka xasuuq oo geystay waxa weey waa Garbo Galaalshe Gunagado Xamaro Gabagabo Galadiid Dhanaan dhagax madow magaalooyinkaas mid ugu yar 100 qof buu ku dilay duleeka علشان قفك إنسان كعادي عجلته أصله دوبي باجرا أو فيسبوك سوق اللي كستون لو قلين ميت كي وسكر صار وكوكر دانتيني علشان وحو قرصنا يو أو ننحسونا يو أو كاميرا يسكير على ما انتو لا يقدرك أو ميت كذا وصفا أيو يرها أسكت هذا كل دانتين وأعتقد إن هراء أوضاع على بني آدم أما إنسان كل ما حتى نازجي جرماني ومم لنا هيو meydka intay soo qaadaan dadka inay ku kordhaanteen jireen ama ku kordhaansi jireen waxa kaloo jira arrinka meydka lagu dul dhaantaynayo sawiro imika muxuu ahaayay Facebook dib inoo xasuusinayo ay ka soo wareegtay muddo ku dhawaad 2 sano mid kamid ah wasiirada dhulka la haysto oo la yiraahdo Khadar Cabdi iyo madax kale oo yani ka tirsan dhulkaas oo sawiro dad Soomaaliya ay laayeen sawiradooda cagta saaraya arrinka isaguna wuu jiraa maxaad kaana ku fasiraysaa waa dhaqamada insaanka caadiga uu salahayn soo kordhiyay waxa weeye kali Khadar dheer ma ahayn kamid buu ahaa oo seedigi ah waxa kaloo ku jiray dhammaan wasiirada iyo odayaasha ayuu ku qasbay meydka dad uu laayay intuu sawir ka soo qaaday inay cagta saaraan ama farta sanka ay ka geliyaan kaliya wasiiradiisa kuma una qasbin odayaashii deegaanka ee ugaasiyadii iyo garaadadii buu ku qasbay oo aniga ugaaska beeshayda uu kamid yahay oo in aad loo ixtiraamay yahay yuu ku qasbay inta ag istaagaan sawirka inay lugta saaraan ama ay sanka farta ka geliyaan waxaasu waa dabeecadihiisa waxaa kamid ah
qof kasta oo deegaanka ku jira inuu dakana geliyo haddaad qof dilin waa inaad meyd isku sawirtaa ama waa inaad walaalkaa soo jaajuusto ood xidhid ama walaasha ama in adeerka ama aad ku maqraati kacdid maxkamadiisa qof walba marka si uu dambiilo u noqdo oo shacabka oo dhan ay dambiilayaal u noqdaan waa dhaqamadiisa marka taas waa saasay u dhacday marka xaaladda saasaan kugu soo koobi lahaa taswiir yar unbaa idinka siinayaa dhulkaas dadku say u nool yihiin xataa etoobiyaanka kale uma noolo qofka soomaaliga jigjiga intuu ka cararo iyo qabridaar iyo dhagax buur ayaa wuxuu qaxooti ku yahay diridhaba iyo adisaba iyo dhulka oromada cabdiiley bay ka qaxeen maxaa yeelay gabdhihii waa la kufsanayaa wiilashii ama waa la dilayaa ama waa la xidhayaa ama qasab baa lagu askaraynayaa odayaashii sidoo kale waxa weye suldaamadii la yaqaanay ugaasyadii garaadadii ama wuu dilay ama xabsi bay ugu jiraan ama waddankii dibadda uga carareen dhakhaatiirtii injineeradii dadkii aqoon-yahankaa sidaasi lamid a keliya meesha waxaa isoogu haray shacab maatiya oo uu afka haysto iyo asaga waxaa laga yaabaa dad badan oo idinka mida inay arkaan dad dhulkaa soomaali galbeed ka soo qaxay oo hargeysa burco boosaaso garowe gaalkacyo ilaa xamar degan oo usoo qaxay qaarkood waa aqoon-yahaniin waa macallimiin sababta ay ugu soo qaxeen muhiimaddahi wax kale ma aha ninkan bay ka soo carareen sinaba ooga nabadgeli maysa calashaan haddaad tiraahid waan ku taageersanahay xataa ood u shacabtuntid siaad ooga nabadgeshi way adag tahay imaa inuu dakana ku geliyo ood wax dishid ama mid aad ku istaagtid ama inuu mataqaanaa ku xidho oo ku dilo marka cadaab adduun bay arkeen qofkii soo arkay ama tegeyna wuu garan karaa ama ka warhaya waa north korea wiilka yar uu ku ciyaarayo oo nin kasii axmuuqsan uu haysto oo kasii cadowsan waan ka baxay يعني تعديga intaa leeg iyo dhibaatada intaa leeg ee ka jirta deegaankaas adimka muxuu ahaay aad sawir naga siinaysay kooban iyadoo aynu soo noqonayno aan su'aalo muxuu ahaay ka weydiinayno ka hadalkeedu طبعا waxa jira muxuu ahaay warbaahin Soomaaliyeed ayaa jira oo heer caalami ah iyo muqbahiyaal Soomaalidu waxa weeye TV-yadeeda ama muqbahiyaashii way soo bateen arrimaha miyaanay ka hadal kama hadlaan waxaana jecelahay inaan idiin sharxo labo khitad ama tactic buu isticmaalaa uu warbaahinta ku aamusiiyey warbaahinta caalamiga ah wuxuu iswariyaashooda ayuu iibsaday lacag badan buu haystaa kharash badan buu haystaa maamulkaas waxaan u malaynayaa sanadkii budgetkiisa waa 700 milyan oo dollar waxaa u dheer ganacsigii gebi ahaan asaga iyo walaalkii baa haysta iyo ehelkiisa qof kale kartoon baasta ma keeni karo kiis bariisa ma keeni karo macalaajaad ma keeni karo aan ka ahayn walaalkii iyo seedigii iyo inaabtigii qaraabadiisa asaga controla marka lacag aad u badan buu haystaa wuxuu sameeyay marka haddaan kuu soo qaato warbaahinta caalamiga ah VOA-da iyo BBC-da BBC-da wuxuu u isticmaalay ninaan qaraabanahay oo ka shaqeeya oo taqaanid oo la yidhaaho cabdirasaaq xaaji catoosh nairobi uu fadhiyaa sanadkii dhowr jeer buu jigjiga tagaa lacag badan baa laga siiyaa kharashaad badan buu ka soo qaataa asaga ayaa linkiga isku xira VOA-da iyo BBC-da iyo cabdiile qofka uu cabdiile rabo iyo siduu rabo baa looga hadlaa qof kale lama waraysto tusaale yar baan kuu soo qaadanayaa aniga iyo cabdirasaaq xaaji catoosh qaraabaan nahay waana isnaqaanaa ehel baan nahay qaraabaan nahay waa ninaa si fiican isu naqaano cabdiilay bishii koowaad ee sanadkii kowdii bishii December ama sanadkii hore December wuxuu dilay ayeeyday allah u naxariisto cabdirasaaq xaaji catoosh wuu ogaa inuu ayeeyday dilay wuu soo wacay wuu tacsiyey waan ka xumahay buu yiri ayeeyday inuu dilo waxaan ku yiri waa runtaa tacsida waan ka aqbalay laakiin ma ilaacada ka sii daysi qaraabeenu nahay waad og tahay ayeeyday inuu dilay ilaacada maad ka sii daysi يعني ما حويه واحد دعدان ka dhex galay bimini ka sii daysid yani dacdadan sidee u dhacday ها يسوي dhacday maxay la xogaal baa u tahay wuu ogyahay aniga asay u qaraabanahay wuu ogyahay say u dhacday in la dilay ayeeyday wuu ka warhaya marka maadaama aad xogaal u tahay og tahay sida ayeeyday loo dilay ma idaacada BBC-da u gudbisi wariya tahay oo idaacada BBC-da dadka u dhaxaysa wuxuu igu jawaabay ehelkayga u qabsanaya ehelkayga
yaan ka cabsanaya anigana in la dilo oo saa loo dilo maca alasaf hadalkaas run ma aha cabdirasaaq xaaji catoosh ehelkiisa oo hadda jooga qoraxay ama soomaali galbeed ma jiro anu xaqiiqatan waxaan ogahay lacaga aad u badan oo dollar ah boqolaal kun oo dollar ah inuu cabdiilay siiyey asaga uu ku taajiray uu sanad walba siiyo si aan looga sii dayn BBC Soomaali iyo VOA war asaga lid ku ah ama dulmiga u geysanayo si aan loo soo bandhigin waxa way tusaale yar baan ku siinayaa warka iyagana waxaanu siin doonaa cabdirasaaq catooshna waxaanu siinaynaa xaqa inuu jawaabo oo ka jawaabo runtii fursad baanu siinaynaa inuu isaguna muxuu ahay markiisa eedan aad u soo jeedisay inuu muxuu ahay jawaabo markaa fursadaasaanu siinaynaa waad wadan kartaa hadalkaaga aad baad u mahadsan tahay ha waxaan jeclaan lahaa cabdirasaaq catoosh in la weydiiyo marar badanna BBC-da ay ku doonto waxay yidhahdeen deegaanka kama soo warrami karno oo weriyaal nooma joogaan arrinta aad noo sheegi sidaa marka aad noo sheeg ma xaqiijin karno haddii aadan xaqiijin karin weriyaalna aysan kuu joogin marka warka cabdiiley iyo qofka uu rabo inaad wareysatid saad u waraysataan ila waad ogtiin meeshii free media kama jiro weriye idinma joogaan su-aasha unbaa jeclaan lahaa in la weydiiyo cabdirasaaq xaaji catoosh maxaad u waraysataa maadaama aan lagu ogolayn inaad ka shaqaysid oo dhulka aad ka soo warantaan aan loo ogolayn iyo media saxaafad xor ah maxaad u waraysataan dadka cabdiiley uu idiin soo diyaariyo danihiisa iyo siduu rabo warka u sheegaya oo ay ka mid yihiin wasiiradiisa iyo madaxdiisa kale haddii aadan waraysanaynin aydan waraysanaynin ama aad diideen dadka tacadiyada idiin soo gudbiyay iyo dhibaatada uu ka dhacay midda labaad ee tusaalaha usoo qaadanaya waxay tahay fursad ma siiyaan hadday maalan kuwa hadduu usoo diyaariyey cabdiile iyo kooxdiisu dad gudaha jooga hadday usoo diyaariyaan fursad ma siiyaan dadka dabadda jooga inay muxuu ahaye ay hadlaan mise kuwa gudaha laftooda inay fursad siiyaan ayay ahayd ma siiyaan wax fursad gebi ahaan ma siiyaan qof dibadda jooga keliya dadka gudaha iyo dadku asagu usoo diyaariyo uu yidhaaha waraysta bay waraystaan hebel waraysta cabdirasaaq buu u gudbinayaa cabdirasaaq qolyaha kale BBC-du u gudbinayaa saas way ku waraystaan VOA-da saas oo kale inkastoo VOA-du kaga duwan tahay jabhadda oo nalaf iyo dad kale inay waraysato laakiin tacadiyada iyo dhibka uu geysanaya ma waraysato weriyaalna uma joogaan waan ka gudbayaa muuqbaahiyeyaasha ama tviyada soomaalida midka ugu caansan ee universal la yidhaaho infact cabdiiley qayb buu ku leeyahay asagaa lacagta ugu badan ee ku baxda tv-ga asagaa iska leh waxay gaareen heer qofka shacabka ah waana hawsha waa lagu jira waa lagu dacweynayaa maxaa yeelay freedom of speechka wadamada reer galbeedka ee sharcigooda uu haysto axmed abukar lama ogolo dadka freedom of speechkooda in la cadaadiyo ama lagu ceebeeyo wuxuu ka soo sameeyaa cajalada cay aflagaado iyo caraatana markaasaa universal laga soo daayaa dadka la caynayo urur ma aha xisbi ma aha waa dad shacaba oo wadamada reer galbeedka ku dhaqan oo cabdiile iyo nidaamkiisa iyo dulmigiisa keliya sheegay marka axmed abukar wuxuu jigjigu tagaa uu degan yahay inta badan sanadkii guryuu ka qaatay qandaraasyaa la siiyey lacag aad u badan buu siiyey cabdiiley qof ama wax lid ku ah inuu sheegay iska daaye qofkii sheega oo Facebook ku soo qora ayuu dacayad ka sameeyaa Facebook qofkii ku soo qora dhaleecayn cabdiile ku saabsan ayuu riwaayad ka sameeyaa oo dacayad ka sameeyaa arinta ayada sidii hore ma aha dad badan oo aqoon-yahano looyara aba u istaagay kiis dacwaa lagu furayaa axmed abukar inuu daawadaa laga yaabaa london buu degan yahay sharci baana ka jira UK isagana waxaan siin doonaa adoo hadalkaaga sii wadan doonaa waxaanu siin doonaa inuu muxuu ahay dabcan ka jawaabo eedeymaha aad u soo jeedinaysid fursad baanu siinaynaa halkan inaanu ugu yeedhno oo uu ka jawaabo waxa muxuu ahay aad ku eedeynaysid waad wadan kartaa hadalkaaga cabdirashiid aad baad u mahadsantahay marka axmed abukar cadeyma cad baan ka haynaa asaga dhulka la siiyey oo magaciisa uu ku qorayaa jigjiga laga siiyey oo dad ay lahaayeen beero u ahaa waxaa kaloo caddayn u haynaa qandaraas magaciisa uu ku qoran yahay oo 120 milyan oo bir ah lacagta Ethiopia ah lacagtaasoo u dhigmataa waxaan u malaynayaa lacag 120 milyan waxa u dhigmataa lacag dhowr milyan oo dollar ah oo uu qaatay asaga oo magaciisa ku qoran caddayntii baan haynaa iyo dukumiintiyadii waana waxa aan maxkamadda iyo la tiigsan doona haddii ilaahay yidhaaho marka inta soo hadhay miidiyada kale
cabdiile wuxuu ku sameeyaa intimidation ama handadaad wax la yidhaaho tusaale yar tv-ga RTN wuxuu waraystay faarax macalin oo dulmiga ka hadla nin Soomaaliyeed siyaasi oo Kenya degan ama reer Kenya dhowr jeer baa laga waraystay tv-ga RTN cabdiiley reerka iyo beesha tv-ga ninka iskale mataqaana beeshooda yuu hanjabay odayaal abuu u soo diray haddaan lacag aad isiin weydaan waan idin dilayaa meel baan idinku tooganayaa Nairobi baan idinku dilayaa tv-yada kale Soomaalida oo dhan saasuu ku sameeyaa marka dadku lafahooda u cabsadaan markuu handadaad u soo diro oo ragga u qaabilsan assassinationka Nairobi buu dad ku dilay xamar buu ku dilay hargeysa oo laga yaabo in aad u report gareysay buu dadka kala tagaa mucaaradka ku ah wax ka sheega ama uu ku dilaa marka hargeysa iyo meel walba dadka wariyaasha jooga way ka cabsadaan Somaliland waa dawlad madax bannaan oo sharciyo leh adduunka sharciyo ka jira cabdiile intuu soo baxo oo uu yimaado magaalada hargeysa ama maamulka hala shaqeeyaan ama dad maamulka ku dhex jira ayuu ka soo qabsadaa dadka mucaaradka ku ah markaasuu afduubtaa uu jigjiga la tagaa shacabka waxaan u malaynayaa Faysal Cali Waraaba marka hadlay marka aad wajaale ka sabraysid oo aad sabab u socotay hargeysa intaad ka baxdid cadaabka dadka loogu geysto wajaale iyo jigjiga inta u dhaxaysa waad aragtay xataa dadka reer Somaliland ama beel ahaan Somaliland dega Soomaali galbeedna dega gaashaamiye ka yimaada mustawqiyaha laga jeexjeexa gabadhii qurux badan oo mar iyo laba iyo saddex ahayn oo aniga ila soo xiriireen qisooyinkooda baabuurka lagala degaa magaalo qaran meesha la yiraahdo liib booliisku ay control ka dhigteen waa la xiraa waxaana loola degayaa gabdhaha qurux badan in la kufsado odayaasha lagu rafaadiyaa dhalinyarada lagu rafaadiyaa Faysal Cali Waraaba ka hadlay dad kale badan ilaa hadda cid wax ka qabatay ma ay jirto waadna ogtahay dhibka loo geysto dadka marka media Soomaalidu sabaha ay u soo report gareyn laadahay tacadiyadaas oo dhan ay siyaasiyiintu ka hadleen ama Kenya ha joogaan ama Somaliland ha joogaan ama meel walba ha joogaan waa cabsi iyo laaluushka waxa ugu weyn hadalkooda kooban Cabdirasaaq Xaaji Catoosh iyo Axmed Abuukar oo Universal haysta waa labada nin arimaha lacag aad u badan ku qaata dacaayadaha iyo propagandadiisa in la faafiyo wixii ka soo horjeedana aan laga hadlin cabsi gelinta waxa u qaabilsan ninka hoggaanka nabadgelyada ugu magacaaban iyo taliyaha ciidamada liyu booliiska oo maalin hargeysa joogay oo la yiraahdo Cabdiraxmaan laba goole ama Cabdiraxmaan Buraale General Cabdiraxmaan Buraale ugu yeeraan waa ninka dilka assassinationka wadamada deriska ka dhaca afduubka iyo xasuuqyada liyu booliisku ay geysanayaan u xirsaaran waan ka baxay waa maasantahay waayahay waxa weeye maadaama warbaahintii muxuu ahaayey aad sida aad sheegtay aanay muxuu ahaay tabinayno aanay ka hadlin warbaahintii afka Soomaaliga ku hadlaysay tii ay Soomaalidu lahayd iyo tii heer caalamiba oo aad sababaha kala duwanna aad ku sababaysay waxay la hadli laayihiin inta ka baxsan aan joogin Soomaali galbeed dabadaha joogta sida adiga iyo muxuu ahaayey qurba joogiinu ma hadlaan mise dhibaatay la kulmaan waa dhibka ugu weyn waxyaalaha uu ku guulaysto waxay tahay dadka dal iyo dibad aqoon-yahan iyo qof shacaba inuu afka wada qabto uu caburiyo aysan hadli karin tusaale yar baa idiin soo qaadayaa haddii qof uu Facebook wax ku soo qoro ehelkiisa intuu qabto ayuu qaarna dilaa qaarna waalidka oo kale asagoo garaacaya ayuu kula soo hadalsiinayaa TV buu ama video buu qasab kaga duubayaa ayagoo adiga ku caynaya ama qof mataqaanaa ayagu iscaynayaan laftigooda qaar wuxuu ku qasbaa inay ayagu iscaayaan wuxuu soo dhigaa baraha bulshada tii hadda ugu dambeysay 2 maalmood ka hor bay dhacday oo wiil Mareykanka jooga oo dulmigiisa ka hadlay Samatar Badaba la yiraahdo Samatar Amiin Badaba la yiraahdo aabihii buu intuu sandaqada xageeyay buu filim ka soo sameeyay laakiin tan ugu daran waxay tahay xariga iyo dilka qisayr baan ka sheekeynaya waxaa jira nin walaalkay oo deegaanka ka soo jeeda oo la yiraahdo Mustafa Umar kuna magac dheer Mustafa Aktar bartiisa Facebook buu ku soo qoray dhaliilaha iyo tacadiga dadka uu ku hayo Cabdiile
keliya Facebook idaacad kama hadlin TV kama hadlin bartiisa Facebook buu ku soo qoray wuxuu qabtay walaalkii iyo aabihii oo markaa magaalada dhagax buur leeyahay ku sugnaa wuu kaxeeyay dib buu u xiray saas labada gacmood xagga dambe u xiray magaalo dhanaan la yiraahay goday dhaxdooda markuu marayo rag uu xilsaan wuxuu gaariga laga tuuro oo orday gaari qabaala oo kaba laga tuuray Mustafa Cagjar walaalkii injineer Faisal Cagjar baa leeyahay ama Faisal Umar aabihiina waxaa loo qaaday inuu daawado oo odaygu maskaxdiisa daba marto wiilkiisa sida loo dilay tacadiga kaliya ma aha inuu qofka dilo ehelkiisa intuu soo qabto ayuu yiraahaa daawada saan u dilay inuu saxabaalayo Faisal Allah u naxariisto sanadkii hore ahayd November gaarigii oo ordayay baa laga tuuray waa qisa dadka Soomaali galbeed ka soo jeedo oo dhan ay og yihiin gaarigii oo 120 ku socda laga tuuray baawurkii baa la istaajiyay dib baa loo soo celiyay aabii baa la soo dejiyay wiilkaagii arag baa lagu odaygii maskaxdii baa istawa martay ilaaha caafiyo wali wuu xanuunsan yahay maxaa yeelay ilmahaagii oo wiilkaagii oo injineera oo soddon dhowr jira oo hadda waqtigii xaas iyo caruur leh oo hortaada intii baawur laga diiray madaxii u dilaacay waa waxyaalaha tacadiga ah ee aad aan uga murugooday mujarrad waxa loo dilay inanka injineerka ah ee la yiraahdo Faisal waxa loo dilay walaalkii oo dabada jooga oo la yiraahdo Mustafa ayaa wax qoray dhaliil uu dhaliilayo Cabdi Ilayo kooxdiisa iyo tacadiyadooda ayuu ka hadlay aadiya tacadigooda ayuu Facebook ku soo qoray markaas loo dilay walaalkii baa loo dilay oo gaari looga tuuray tusaalaha kale ku soo qaadanaya waxay tahay aniga naftigayga anu markii aanu adkeysan waayay oo dadkii wada aamusan aan arkay dal iyo dibad ayaa wadankana aan tago soo arkay cadaabta iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan ayaa waxaan go'aansaday inaan hadlo aan bartay Facebook ku soo qoro waxaan soo arkay indhahayga soo saaray kaliya maxraati u soo ahaa wuxuu sameeyay ayeeday soo qabtay oo 100 jira markii aad hadashay cambaro Sheekh Tayyib Xaaji Barakala la yiraahdaa waa almost 100 bay jirtay ilaa 7 sano xisku ka tagay oo way asaasaqday way isku maartay xusuustii baa ka guurtay asagu muuse ogeyn guri aan u dhisnay ku jirtay ayadii iyo gabdhahayay oo habratay dhashay baabuur qabaala ku ritay wuxuu la tagay meelaha uu dadka ku cadaabo asaga oo raba aniga inuu ila soo hadalsiiyo oo aniga uu igu cabsi geliyo ayeeyo oo i baryayso oo ayeeyo iska daa nimankan way dilayaan hadii kale macal asaf muuse ogeyn ayeeyo inuu xisku ka tagay oo aniga bay ma xasuusto ayaka iyo ciidankii mujrimiintii uu diray waxay u qaateen inay isdiitinayso oo ay mataqaana xusuusan karto laakiin ay isdiitinayso way jir dileen habeen galab bay la tageen habeenkii markii 11 habeenimo ahayd ayay xaafadii ku soo celiyeen markaasay waliba yiraahdeen gurigeena ha laga baxo ma deganaanaysan oo gurigii way la wareegeen haddaba ayeeyo markay soo celiyeen mantagay bilowday habeenkii oo dhan way mantagaysay arbacay la tageen galab khamiistii saacadu 12 duurnimo markuu ahaa bay kooma gashay maalinkii habeenkii jimcaha afartii habeenimo ayay nafti ka baxday الله ونحرسته الله ونحرسته وحوي ديلكو قف وين عادي أهيت أو بقول جرا إلهي بقعد سكو صوي وأنا أهل الجنة وحاحط أخيرا أبتجي محمد آدم جودله وكسر حري باديها قرب من اللي راهو أصله جيل عنا يري جراب وها لفتجي حرير بدل ما أنا الله يبقى أبتجي مرة رئيسه كان الدم بيسي إن كسر كور هي ما أنا ولا هل الجنورين في بادي وها وتدوات الجر جيلس إسكندر قني وساق بتاعي إلا بشي لبي طبنات إلا حد وحرية شلي أو قدام بيسوي حلايش يسنك إنه ديك بدن كسرعه ويستعج وعيه تركنا أوضا براي وعذابك تعذيبك أو جسنيين وحوساء عذابي وحتى عنور ربعنا أمصا أنا دول مبيس الشيء وساء عذابي وحليوي رسالة ورينو أبتدي تعالى جيابا مركا الله ونحرسته أنا وحامي أبتديكم منانكي ودلي كما فضل بدنو هدي أنا جبنا لقن كجانجسترين تي ما في يده بحوي هاي في الماضي سين كده وجرني
wiilkaagaan dilayaa abtigaagaan dilayaa haddii aadan saan rabo aadan samaynin dhaqankaas marka haddii la ogolaado oon qofna tadxiyo uusan bixinin qof walba uu cabsado abtigii iyo ayeydii waa sida maanta taagan marka abtigii hadduu dhinto allah u naxariisto ninkii dilay waa la ogyahay iyo tacadigii insha allahu tacaala maalin bay cadaaladda imaanaysaa waxaa u xiran habaryartay oo maryaamo maxamed wuxuu la yidhaaho hooyaday bay iskooyo yihiin waa qof 60 jira aan weligeed ilmo dhalin oo weligeed xiska laga hayin xiskeedu ma joogo taniyo markay yarayd ilmo ma laha weligeed ilmo maysa dhalin magaalada jijigay meel ka deganay oo nu ku ogeyn wuu raadiyey wuu soo qabtay way u xiran tahay waxaa lagu yidhi shalay maanta waxaa la ii sheegay jeelkii bay ku jirtaa cuntadii way diiday ma kala ogo waxay meesha ugu xiran tahay in xanuunka dhimirka loo soo xiray bay u haysataa iyo arrimaha waana caafimaad qabaa way leedahay maxaa laga xiray waxaa u xiran gabar habaryartay dhasho ayadii haysay oo la yidhaaho sucaada xalow isahaa 7 ciyaalo oo agooni haysatay oo u xamaalay jirtay waxa uu u xirayo waa aniga inay labada leeyahay walaalo tahay waxaa u xiran cabdirasaaq maxamed aadan gude oo ah wiil uu dhalay abtige oo magaalada ka shaqaysan jiray waxaa xiran ganacsi nin abtige oo magaalada deganeen maraykanka jooga xawaalad uu lahaa ama uu sheer ku lahaa waa la xiray iyadana waxaasoo dhan wuxuu u sameynayaa inuu aniga iyo aamusiiyo qof kasta oo deegaanka ka hadlana waa sidaa boqolaal cajal buu iga soo duubay oo aniga igu caynayo waalidkay ku caynayo qof walbana saasoo oga soo duubaa adi laftigaaga waxaan u malaynayaa riwaayad buu kaa sameeyey cajalada xaraatana marka haddaad dulmigiisa ka hadashid hadduuna ehelkaaga gaari karin oo ehelkaaga markaa uusan dili karin ama xidhi karin wuxuu samaynayaa cajaladuu kaasoo samaynaya cay iyo xaraatana inta badanna dadka wuuna dilaa cajaladahana wuu isagu daraa labadaba wuu isagu daraa caraatankii iyo cajaladihii iyo dilkii iyo caydii cajaladaha wuu kasoo duugay waxaa ilaahay wax lagu mahadiyaa maanta inaysan sidii waagii hore ahayn inay dad badan ku baraarugeen dulmiga inay kasoo horjeedsadaan allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi markuu ka hadlayay yuhuudda waxay naclad loogu soo degtay kaanuu laa yatanaahawna can munkar yafcaluun wuxuu ilaahay u halaagay mayna iska reebi jirin xumaan ay samaynayaan xadiid kaloo rasuulka wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayir biyadih fain lam yastatic fabilisanih fain lam yastatic fabiqalbih qofku wadalika adcafu liimaan qofku markuu munkar arko ama reer banu israa'iil waxay nacladoo u soo dhacday ma aha waxa xumaanta ay samaynayeen qaarkood baa cibaadaysanayay oo masaajid tukanayo ilaahay caabudayay waxay ahayd xumaanta ayaysan iska reebi jirin ummaddan marka dhulka soomaali galbeed dadka degan haddii aysan hadlin sheekh iyo shariif laa shakka inuu naclad iyo habaar ilaahay uu kusoo degayo waxa weeye wiil yar oo dib jira oo ciyaalo suuqa oo ilaahay naxariistii uu ka qaaday oon iimaan lahayn in laga wada cabsado laakiin waxaan ku ilaahay oga mahadinayaa maanta in cabsidii ay baaba'day inay dadkii dhiiranayaan inay dad aad u fara badan maaragtay ay ka hadlayaan dulmigiisii kuwii la dulmiyey inay soo bandhigayaan ee la yidhi kama hadli kartaan boqolaal qof baa walaaladood la dilay ama ay xidhan yihiin wuxuu ku qasbayaa haddana mujrimiin uu dibadda u soo diray oo hadda kii aad sheegaysa khadar uu ka mid yahay khadar cabdi ismaaciil oo maraykanka hadda jooga minneapolis inay dhaanto iyo sacab u tumaan yaa u tumaya kuwii eheladooda uu laayay yaa u sacab u tumaya waa imtixaan iyo mucjiso walaalka intuu dilo oo uu xidho iyo haddana intuu dibadda kugu yimaado uu kuleeya dhaanta inta oo sharci weyn oo qasaba oo ii sacabee bal waxaad naga siisaa fikrad waxaad naga siisaa dhowaan waa kii yimi ninkaa aad sheegaysay khadar cabdi waa kii maraykanka wareegayey waxa weeye dadkan u imanaya iyagu ma dad ka badbaaday dhibaatada maxay cabdil iyo kooxdiisa dadkani maxay ahaayeen ma waxaa jira runtii waxaan la sheegay karin oo aydan inoo sheegeen oo dad muxuu ahaye ku badhaadhay oo horumarka halkaa ku qanacsan oo ma dad baa jira ku qanacsan muxuu ahaye dowladda dadkani maxay ahaayeen
ودتك Soomaalidu ay Yurubta degan ama qurbaha ay calan casta u yaqaanaan ee balwadaha leh ee shilmaadka yar intii la siiyo balwadaha ku shaqeeya wayna tira yar yihiin intooda badan dadka waxaa lagu cabsi geliyaa ehelkaabaa la xidhayaa haddaada shirkaa tegin waddankii joogay dadku way isgaranayaan inay hebelow haddaada imaanin ama heblaayoy hooyadaabaa la xidhayaa oo waddankii joogta ama qof baa ka xiran waxaa leeyahay waa lagu soo deynayaa haddaad timaadid oo badan aan loo fulinin oo loo soo deyn ehelkooda xiran haddii kale ood imaan weydana inta hadhay ee ehelkaaga ama qaraabadaada ay waddankii ku hadhay baa la xidhayaa marka waa tahdiid ama mataqaanaa cabsigelin culus dadku ma sheegi karaan oo mushkilada ugu weyn ay jirto waxay tahay dadka maskaxdii uu ka qabsaday way wada cabsanayaan kuwa ugu hanjabay ee caddaynta haya ama uu mataqaanaa maalku hanjabay haddaad tidhaahid war aan dacweyno oo kaalaya hay-adaha sharciga i raaca kuma raacayaan waxay leeyihiin ehelka intii haray buu xirayaa ama uu dilayaa marka dadkaas wax taageersan oo horumarka uu sheeganaya ee beenta ah een soo aragnay ee ummaddoodna ay soo aragtay dadkaasu cid horumar iyo waxa ma aha dad qasban ama waxooga shilmaada la siiyey oo Soomaali oo dhan ka soo jeeda deegaan walbaba marka waxa weeye waxaa tiri dadkaas waxa weeye dad la khasbayo oo runtii runtii qofku marka uu ogaado in ehelkiisu ay dhibaato soo gaadhayso sidan oo kale runtii ay iska noqonaysaa runtiina waxa weeye waa wax in la eego oo la ogaado mudan ay waxa weeye waa meelaha kaliya ayaa lagu tirin karaa yani Soomaali maanta ka jirtaan jabaada noocaas oo kala qofka hadduu aragti kala yeesho in ehelkiisa laga jarayo xaqiiqatan waxa weeye waxayna daawanaya dad badan oo baraha bulshada siday doonaan uga hadla oo eheladoodii ay joogaan madax Soomaaliyeed ay hoos joogaan oo laakiin aanay dhibaatadaas aanay soo gaadhin laga yaabaa in isaga qofkaas ay wax si gaar ah u soo gaadhaan laakiin aanay taabanayn dadkiisii wala tazira waziratun wizra ukhra waxa weeye qofkii dambiga lahaa un baa lagu la saaraya laakiin halka waxa ka muuqata dad aan waxba galabsan hooyooyin waxba galabsan aabayaal waxba galabsan oo miyada jooga oo magaalooyinka jooga in laga jarayo aynu u noqono meelaha laga jarayo oo waxa weeye waxa aanu maqalaa jeel la yiraahdo jeel ogaadeen oo ku yaalo Jigjiga sida magaca ugu baxay taban ayaan ku dhawaaqaynaa Jigjiga ku yaala jeelkaas sumcadiisu ma hagaagsana dadyow ka soo baxay ayaa jira oo dhib ka sheeganaya waxaan doonaynaa Cabdirashiid oo maadaama deegaanka ka soo jeedid waxa laga yaabaa qisas badan ama sheekooyin badan inaad haysid xog ka haysid jeelka bal jeelka sawir naga sii maxaabiista ku jirta sida loola macaamilo bismillah waxa weeye waa aad baad ma santahay waa meelaha ugu badan ee dadka lagu cadaabo aanu jeel ma dhihi karo torture chamber ama meel dadka lagu ciqaabo weeye jeelku waa meelaha intii la isku xiro aadun xiran tahay xorriyadii laga qaaday laakiin aad ku nooshahay meeshan jeel ogaadeen xabsiga la yiraahdo ma aha meel lagu xiro kaliya waa meel lagu ciqaabo dadka oo ciqaaba tusaale yar baan ku soo qaaday ayaan idiin sheegaya idinla wadaagaya waxaa ku yaala qolal la yiraahdo qolalka taagnida oo istaaga qofku waxa weeye waa qol yar oo intaas uu leeg meelahaas oo dhinac walba shubka ah albaabka laga furayo ma ahane inta kale oo dhan shubka ah albaabka laga furayo oo markii lagu xiro wajiga ka saarmaya marka ma fariisan kartid waa inaad taagnaataa dadka lagu xiraa qolalka istaaga la yiraahdo kuwii ka shaqeeyay askartii ka shaqeyn jirtay dadka ku cadaabi jirtay iyo dadkii lagu cadaabay labaduba way ii sheegeen waxaa jira nin walaalkeena oo ganacsado ka ah magaalada Jigjiga aadna looga yaqaan oo la yiraahdo Cabdinuur Cabdullaahi Mataan ganacsado ahaa urur siyaasad kama tirsanayn niman baa ku yiri Cabdiilay oo maqaayad wax kaaga sheegay dadku way sheekaystaan nin baa uu soo dacweeyo yiri waxbuu ninkaas ka sheegay waa la soo qabtay jeelka la geeyay jeelka waxa madax ka ahaa nin mujrima oo kuwa ugu mujrimsan ee dhulka jooga dadka cadaaba oo Shamaaxiye la yiraahdo wuxuu galiyay qolalkii istaaga
marka caadi ahaan qolalka istaaga waxaa loogu talagalay dhowr saacadood qofka in lagu cadaabo si uuna u dhimanin haddii kale wuu gorarayaa dhiiggiisa si uu taagan yahay markaa kadib wuu dhimanaya qofkii oo dhiiggii circulationkii baa istaagayay si u taagnaa wiilkii wuu ku xidhay waa nin khamriyo caba magaaladu iska aaday khamri buu cabay wuu iska iloobay habeenkii oo dhan buu iska maqnaa subaxii buu soo noqday wuu seexday galabtii dambe buu xasuustay inuu nin qolalkii mid kamida ku xidhay oo uu ku iloobay nin waxaa iiga sheekeeyey kuwa xabsiga ka shaqaynaya kamida albaabkii markii saa loo furay wiilkii oo meyda kasoo dhacay yaa kusoo dhacay meyda waxyaalaha kamidka uu tacdiibka dadka ku sameeyey waxaa kamid a wuxuu yidhi raashinka la siinayo cusbada ha lagu badiyo waxaan u malaynayaa 2014 bay ahayd waxaa ku dhintay dadkii wuxuu yidhi raashinka markaad siinaysaan cusbada kaga badiya sayna u cunin marka cusbada lagaga badinaya raashinka yara laga siiyo xabsiga maalinkii dambe oo ciid ay ahayd buu yidhi dadka inaan sii daayaan rabaa oo dad badanna ku dhinteen 100 ka badan ay xabsiga ku dhinteen dadkii buu yidhi la soo shiriyey marka dadku gaajo anigu waxaa ku jira wiilaan adeer u ahaa waa naxay markaan arkay laga soo daayey wuxuu yidhi dadkii baan la hadlayaa waan idin fasaxayaa dad waxaan u malaynayaa 3,000 oo qof ah yuu shiriyey waa maalinka uu ka qirtay dadka hortooda inuu dilay garaad uu garaadada Soomaaliyeed ee deegaanka kamid ah oo ina garaad Axmed Maqtal la yiraahdo garaad Xasan garaad Axmed Maqtal la yiraahdo ninka kaliya gacantayda ku dilay wiil dadkii ka camarku yiri qof ka cala waay wala rajul waahid qof halta shakhsi kaliya qof istaaga ya dadkii laga waay gaajo bas kii meesha haystu ku yiri dadka maxaa ku dhacay baxaan waan fasaxay ma kaxaan ma kici karaan baa dadku kulligood sidan bay u yeelaan waa garaab gaajo kii buu qabsadu ku yiri wariyam maxaad sidan u samaysay dadkii oo maqlaya kii wuxuu ku yiri adaa igu tiro cusba kaga badi raashink cusbada ugu badi adaa ay amray anna sidii ma sameeyay waa dhacdo cajiib oo laga yaqaan daacuunka ka dhaca iyo mataqaana dadkii ka soo baxay markay ka sheekeeyaan ilmada ma cishan kartid barkada ku yaala habeenkii saqada dhaxay jigjir way qowda dadka lagu dhaxrido oo inuu dhimanayo kala laga dhigo intii madaxa loo geliyo soo lugaha iyo intii lugaha iyo gacmaha saa loo xiro xagga dambe ya bahal lugaha laga xiraya waa la mukursinaya markay naftu ka bixirta laga soo saaraya hadhow tuubooyin lagu garaacayo marka waa xarun cadaab weeye waxa la igu yiri waxa loo design gareeyay injineeradii design gareeyeen in lagu xiro dad 700 waxaa ku xiran dad ka badan 7,000 oo qof 700 baa loogu talagalay dadku shifti bay u seexdaan qoloba dhowr saacadood bay seexdaan marka kaa keliya maaha mid ka sii daran oo waxaa ku yaala goday oo hadda xaaji ku xirnaa oo uu soo xidhay oo 80 iyo dhowr jir asaguna ah oo xaaji Axmed Abdi la yiraahdo oo kooma ku jira dir dhawsi loogu cadaabay goday buu ku yaalaa ooyinka xariiq ciidan buu ku samaystay iyo dadku ku cadaabo hatta Soomaaliya gobolka Boqol magaalada Aato la yiraahdo wuxuu ku leeyahay xabsi uu dadka intuu ka kaxeeyo gobolada uu ku soo xidho waa Soomaaliya gudaheeda gobolka Boqol waxa kamid ah dadka lagu xidhay oday adeerkay ah oo qurba jooga oo Ingiriiska ka tagay oo magaalada Qabdahara soo jooga am waqti habeenimo asabara intii loo soo dhacay oo la abtuubay Boqol laga riday waxa kamid ah ugaas hadda la soo daayay Ilaahay ka soo daayay oo sanad ku xidhnaa Boqol oo ugaas Maxamed Arab Xiiri la yiraahdo marka xabsiyada عبد الرشيد وتانت كبحين انت ادا سي ودنيا حبسيده وسي ودنيسا waxa weeye Bakool waxay kamid tahay maamulka Koonfur Galbeed soo saas ma aadiya maamulka Koonfur Galbeed waxa weeye jawaab ayaa laga sugayaa inay ka jawaabaan Cabdi ilay ka amar qaata oo uu ku xidho dadka oo ku cadaabo waxa weeye iyaga inuu ka sugaynaa jawaabta waxa weeye wad wadan kartaa إن شاء الله ها مركا waxa uu dadka xabsiyadaas uu degmo walba ku leeyahay xabsiyo lama oran karo qofka Soomaaliga caadiga ah ee Soomaaliga ka yimid ama Somaliland ama Djibouti wuxuu u qaadanayaa meel uu qofka intii xorriyada laga qaado uu ma taqaanay uu iska noolaanayo laakiin san had mar dhaweyd bay idin sheegay waxa ugu yaro qofka lagu sameeyo waxay tahay bac basbaas in madaxa loo geliyo
بلا بدون سبب هدي بلو حربا وإن بعد بساس مدح المقريو وحالة ورئيسا كرادتك هرقيسة كسفري أيكو جيو صعدا ما أدي سوا وجه على نحن قبتين بعد بساس وحانو مرين dad aan ka yarin 10 qof baa igala soo xiriiray Hargeysa ku nool oo reer Soomaaliland oo bac bisbaaska loo geliyay madaxa ama si xun loo jigdilay waliba qaarkood inaan wareystaan damcay wali way ka cabsanayaan ayagoo Hargeysa ku sugan bay ka cabsanayaan Cabdiilay inuu halka ugu yimaado uu ku dilo waana reer Hargeysa qabiilada deegaanka Hargeysa way marka dhibaatadiisu kaliya ma aha Soomaali galbeed inay ku koobataa ee Soomaalida geeska Afrika degan oo dhan qolo una dhibkiisa iyo cadaabkiisa iyo tacdiibkiisa ay si gaarin way yartahay arrinka bacda basbaas kale madaxa loo gelinayo dadka waxaad mar hore xustay sheekh kaana deegaanka oo la yiraahdo sheekh Cabdi Naasir sheekadiisa muxuu ahaa dib inoogu celi waxa ku dhacay iyo bacdii basbaaska ahayd ee madaxa loo geliyay bal dib muxuu ahaa sheekha waxa loo qabtay iyo waxa uu ku sugan yahay hadda sheekh Cabdi Naasir saan idin sheegay horey waa sheekh weyn oo daa YouTube ka heli kartaan asoo taariikhdiisa ka sheekeynaya iyo sida dhibta ay wax ku soo bartay wuxuu deganaan jiray magaalada Goldogob ee gobolka Mudug oo laga yaqaan muddo dheer oo tafsiirka ka akhrin jiray dhowr iyo 10 sano ka hor buu ku noqday magaalada Jigjiga oo meeluhu ku soo barbaaray kamid ah uu wax ka bartay bishii sagaalaad markii dadka Oromada iyo beesha Jaarsan la yiraahdo ee Jigjiga degan Soomaalida iyo Cabdiilay wuxuu amray in la laayo la dhaco la dilo xasuuq iyo wadaay kadib dad Oromiya ay ku laayeen dad Soomaaliya oo qaadkii waxa ka ganacsada Sheekh Cabdi Naasir masaajidku ka hadlay oo tafsiirka ka akhrin jiray wuxuu yiri qof muslima in la dhaco ama la dilo waa xaraam diinta islaamka kuma banaano si waliba walaaladeen wuxuu yiri Jaarso iyo Oromaynu intaas oo sano wada deganayn oo inuu dadka Itoobiya deganayso u xigno inaan dilo oo ma taqaanaa dhacno waa xaraam diinta islaamka kuma banaano qof muslima in la dilo oo la dhaco habeenkii markuu saa ka yiri isla habeenkiiba waa la soo qabtay cadaab badan bay u geysteen waxa kamid ah waxyaalaha tacdiibka bacda basbaaska madaxa loo gelinayo maadaama nin da weyn uu ahaa oo markii hore indhiisu iska daciif ahaayeen waxa la isay inuu indhaha hadda si fiican waxba uga arag bacdi basbaaska ahay waxa la mid ah Sheekh Axmed Garweyne oo asaguna sidaas la mid yiri war dadkan waa islaam khaasatan beesha Jaarsan la yiraahdo qabiilka Jaarsan la yiraahdo waa dad Soomaaliya aan xoolahooda la dhicin iyo ayakana aan dilno la xidhin waa la xidhay Sheekh Axmed Garweyne sidaas oo kale bacd basaasa madaxa loo geliyay waxa kamid ah Sheekh Muxyidiin oo nin wadaada oo waliba beeldan caaqil u ah oo dadka caaqilinta ku jira ilaa hadda uu xiran yahay Sheekh Cabdi Naasir wuxuu ku xukumay 2 sano xariga dad baa igu yiri qoliyo wadaadii waxba uga ergeeyay oo uu soo daayay laakiin ma hubo aanu waxaan xaqiijin karaa 2 sano xariga inuu ku xiray sheekhiina inuu indhihi ka daciifay taasaan xaqiijin karaa oo sheekha magaciisa iyo naanistiisa ma haysaa Sheekh Cabdi Naasir waxa la yiraahdaa Xuseen Cusmaan Cali يا ليلها وشيخ عنكا دتك جبجيو دو way garanayaan Sheekh Axmed Garweyne waa sheekh caana oo la yaqaan oo dadku ay garanayaan Sheekh Muxyidiin sidoo kale waa la garanayaa saddexda sheekh waa la garanayaa waxa kale oo xiran dhammaan macallimiintii malxamadaha Quraanka iyo dugsiyada waxyaalaha uu ku sameeyay dhulka deegaanka waxa kamid ah Cabdiilay dadkii inuu kala dagaalamo diintii akhlaaqdii iyo dhaqankii Soomaaliyeed asagoo raba dadka inuu diinta ka bedelo oo nidaam gaar oo kala oo ka dhigay Itoobiyaanka intay daawanayso waxaan weydiin lahaa TV-ga uu leeyahay ESTV la yiraahdo waligiin yaa muxaadaro ka daawaday ama tafsiir Quraana ama arrin diinta islaamka ku saabsan ilaa dadka Soomaaliyeed ee dhulka degan waa wada muslim boqolkiiba boqol waa muslim wax gaala ah kuma jiraan TV-ga kaliya ee leeyahay maamulkaasu maalin asoo wacdi ama Quraan ama tafsiir laga akhrinayo لا وما أقول تفسير يا قرآن تونا وما أقول مدارستي يو دكسير ملعب دكسير القرآن كما أقول معلمين تبادل كود بحرين وعلى به ويا عبد الرشيد واتسي وضنا هذا وحوية وحندوني أرنكا كوسابسن بيرها
ay culimadu ka hadleen oo ay yidhaahdeen waa xaaraan dadkan muxuu ahay waxa weeye waa dadkii deegaanka waa dad islaama waa ma xalaal maaha dhiigoodu in la fogeeyo in la eriyo in maalkooda ama xoolahooda iyo naftooduba waa xaaraan bal waxaad nooga warantaa maadaama aad deegaanka ka soo jeedid waxaa jira waxaa ka soo baxay nin ganacsadaaba muxuu ahayey oo ka cabanayay in ganacsigiisii uu ku lahaa jigjiga dhul ay ku lahaayeen iyo xaruntiisii ganacsi lagala wareegay bal qisadaa waxaad ka og tahay nooga waran iyo beelaha soomaaliyeed halkaa dega dhibta uu ku hayo kooxda cabdile ay ku haysaan faahfaahin naga sii beelaha soomaaliyeed deegaankaa degan ama xadka la leh waxaan u malaynayaa beel aysan dhibka soo gaarin ma uu jiro oo adiguba tii jaamacad dubbad baad maqraati ka ahayd waxaa daroon xarshin buuhoodle iyo belidhiig iyo dadka reer belidhiig ee weliba dhanka somaliland idaacadaha iyo si ay uga dacweynayeen dhibka new booliska ay ku hayaan dhinacan gobolka wardheer caabudwaaq iyo agaarkeeda iyo dhibaatada uu geystay shilaabo iyo wixii ka dhacay berigii dhaweyd dhulka xadka lale ilaa gurceel beledweyne xadkeeda ilaa bokool iyo gobolkaas kale mataqaana soomaalida marka dadka degan ee xadka degan dhibka soo gaaray marka loo fiiriyo kuwa gudaha degan aad buu u yaryahay laakiin waxay kaga fiican yihiin saxaafad xoraa jirta soomaaliya oo beelahaas iyo akhbaartooda soo gudbisa oo sheegta dhibka jira kuwii gudaha ayakiina ma sheegi karaan looma ogolo saxaafad xor ah oo arrintooda ka hadashana ma ay laha arrinta wiilkaas shujaac xaaji cabdiraxmaan baa la yidhaahaa wuxuu ka dhisteen asagii walaaladii hoteelka ugu qiimaha badan oo ugu fiican magaalada jigjiga oo cabdiilayga laftigiisa uu ku faantamayey qallaasi arrintaa markuu dhacay habeennimo yaa wiilkii la qabtay iyo ehelkiisii hoteelkii lagala wareegay asagiina waa la raafay soomaaliba matiid baa la yidhi shujaac waa nin hargeysa ku dhashay hooyadii mataqaana iyo aabihiiba soomaali ay yihiin soomaali dhalay ah laakiin hoteelkiisa in la dhaca la rabay hoteelkii uu ka dhacay wuu masaafuriyey nasiib wanaag shujaac kama harin wuu dacwooday hantidiisi wuu ku dacwooday hadda bil ka hor marka uu aromadii uu sasabayey xilkiisa u baqayey ayuu soo celiyey oo shujaac u soo celiyey hoteelkii inkastoo la ii sheegay weli inaan la furin marka guryaha uu dhacay ama hantida uu dhacay tira ma laha aniga hadda guriga ayay aan u dhisnay wuu qaatay uu la wareegay qof kasta oo ka hadla hantidu ayadu haddaad guri leedihiin ama dukaan ama hotel marka waa la wareegaya qofaad qaraabatiina xataa hadduu leeyahay ood aad u hadashay dulmigiisa wuu la wareegaya ganacsi kalena mujtamacii umaba ogola oo asaga iyo walaalkiiba u xiran yahay ganacsigii kale marka shacabku waxay ku jiraan nooc cadaab afkii waa laga xiray ganacsigii waa laga xiray oo cunaqabateyn baa u saaran siyaasadda ha sheegin intaa waxaa u dheer tacdiibka iyo xadhigga iyo handadaada oo qof walba oo maanta jigjiyo ku dhaqan goday ku dhaqan dhagaxbuur ku dhaqan wuxuu ka fikirayaa goorma lagu soo dhacaya goorma caawa lagu soo dhacaya saqda dhexe oo maaragtay lagu afduubaya oo lagu xidhaya intii carari kartay saan hore u sheegay way carartay ugaasyadii waxgaradkii nabadoonnadii aqoon-yahankii dadkii ay duruuftu u saamixi kartay ee adduunyada kale ama qurbaha anoo ku dheeraana waxaa weeye cadaabka ummaddaas ay ku jiraan ama soomaalida beelaha kale ee meesha la degan waa wax laga darabsan yahay keliya saxaafadii ayuu ka cunaqabatay oon hadli karin laakiin beel walba oo soomaaliyeed way og tahay qabaa'ilada soomaalida ee xadka degan way og yihiin liyu boolisku intuu ka dilay ka xiray oo ka dhacay xoolahoodii iyo hantidoodii intaba way og yihiin waana wax idaacadaha iyo warbaahinta laga wada heli karo waxa weeye runtii tacadiga aad ka hadlaysaa muxuu ahay aad ayuu u badan yahay xad ma ku fakerteen intiina hadasha inaad arrinka muxuu ahaye aad u guda gashaan oo dacwado ka dhana oo heer caalamiya ka gudbisaan waxyaabahan ka dhacaya muxuu ahaye soomaali galbeed maxaa yani talaa waa arrinta aan wadno insha allahu tacaala qorshaha noogu jirtaa kow waxaan rabnaa kuwa
cabdiiley iyo kuwa ka hoos shaqeeya ee jawaasiista ah ee qurbaha u jooga ama miidiyaha u xilsaaran wadamada ay joogaan inaan dacwooyin kaga gudbino looyaraan la xiriirnay qorshaha wuu socdaa qorshaha labaad waxa weeye cabdiiley iyo generaalada taageerada ku haya inaanu maxkamadda caalamiga ee dembiyada aan ka dacweyno insha allahu tacaala bisha soo socota bisha labaad ballan baan ku leeyahay magaalada heeg caasimadda waddanka netherland oo maxkamadda caalamiga ay ku taalo kiisas horaa loo gudbiyey caddaymo badan oo kaloon haynaan rabnaa inaan u gudbino keliya cabdiiley ma dacweynayno generaalada tigreega ah ee lacagta laaluuska uu la qaato dadkana ku sallida ee og wuxuu samaynayo ee qaybta ka ah ayaan dembiilayaashaas oo dhan baan dacweynaynaa haddii ilaah yidhaaho waxaa kaloo rabnaa saxaafad xor ah oon cidna ka cabsanin oo ka soo warranta dulmiga iyo dhibaatada dadka lagu hayo inaan samayno marka in badan dadku cabsi bay ku jireen laakiin waxaad moodaa hadda baraarug inuu jiro aad u fara badan shirar badan baa meelo badan ka dhacaya insha allahu tacaala 27 bisha shir baa ka dhacaya waddanka maraykanka magaalada minneapolis oo waxgaradka aqoon-yahanka iyo dadku ay isugu imaanayaan dulmiga ay kaga hadlayaan anuu waan tegayaa haddii ilaah yidhaaho waan ka qaybgelayaa dad badan oo culimo oo kalaa ka qaybgelaya culummada soomaalida ama deegaanka kaba soo jeeda ugu caansan deegaanada soomaalida culimmada ugu caansan dhulkaa soomaali galbeed bay kasoo jeedaan sheekh umal sheekh shibili sheekh shakuul sheekh nuur baaruud dhammaantood gobolkaasay kasoo jeedaan soomaali galbeed ay ku dhasheen walaa kalma hal maalinna maysa ka hadal ayaga oo weliba xogogaal u ah oo ehelkooda oo qaraabo yihiin iyo walaaladood meesha tacaddi loogu geystay waxaan caawa halkan baaqa uga dirayaa adiga oo og ilaahay aakhiro uu ku weydiinayaa adduunkana uu ku weydiinayaa adoo sheekh caalima oo soomaali oo dhan ay ku dhegaysato wanaagga dadka u sheega xumaanta ka reeba inaad cabdirashiid cali shucaa iyagana waxaan doonaynaa inaan fursad siino culimada aad magacyadooda xustay fursad inay ka jawaabayaan runtii waxa aad u soo jeedinaysid waxa weeye aan doonaynaa inaan ku marti qaadno halkan annagoo weydiinayna waa maxay sababta aad uga hadli weydeen maadaama aad hoggaankii muslimiinta aad tihiin kudayashada mudnaa ereygiina la maqlayay ahaydna muxuu ahay diiniyan in muxuu ahayey wanaagga la faro xumaanta la reebo sababta aad uga hadli weydaan tacaddiga intaa la eg ee loo geysanayo soomaalida galbeed dadka mustadcafiinta ee halkaa ku dhiban sababta aad uga hadli weydeen su-aashaas cabdirashiido waxaan doonaynaa inaan weydiino culimada aad xustay waxyaabaha ku kalifay inay aamusaan ama haddii ay hadleenna oo aynan ogeyn ay inoo sheegaan halkay ka hadleen iyo siday u hadleen waad wadan kartaa cabdirashiid aad baad mahadsantahay culimada anu waxaan ugu baaqahayaa rabbigiin ka baqa allah ka cabsada من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذه أمة علماء أي حبسته وأي ظلمي كهد ويدو دولك أي كسو جيدين أمة إنت كلا إلا لقوميستو لا عدوان صدو ويسهلن تحت إذن كقدودية إذن كعلماء آيات القرآن كاية إلهي رب إسرائيل كيري كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه آيات القرآن كدقيستا ku camal fala haddii inaydan waxba ka qabin karin waan ogahay laakiin haddii aad sheegtaan keliya ku filan war dulmi baa ka jira qofka loo xirayo qof kale oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafna naf kale dembigeeda ma qaado sharci islaam iyo sharci gaale iyo sharci adduunka ka jira oo qof kale loo qabto iyo dembigu galay kama jiro arrimahaas xogaal baad u tihiin علماء ربي كبقى وأهل كيني ودتكيني كهضلا متقنا لبك جلوات أكتين دتك أصاب بندقة هدي أيضا أصاب بندقة كرنا حتى وكأمس وهلست فننا مركب علماء وحن أقول بقى يا قاركوب بجرب عبد الله صفتا أيكو أك دينتي إنه كحد جبين كوا أيك أنا وحن دي لها ayakuna inaysan ku xadgud mataqaana inayna la safanin daalimka
in aakhare la weydiin doono taageeradiisa qofka muslimka ee ninka taageera ee dulmiga ku taageera cad iyo dhibaataynta dadka muslimiinta aakhare asagaa la weydiin doonaa kii markaad ugu yartahay ka aamus dadka kalena ha cabsi gelinin waxaa jira dad badan oo isu arka xariifiin iyo cuqalaa inay yihiin dad aad u caqli badan oo clevera oo ku dhihi markaad ka hadashid war ha ka hadlin reerkiina miyaada u naxaynin walaashaa miyaada u baqaynin ayaydaa miyaada u baqaynin kuwaasu waa kuwa guulaysiga iyo caburinta sababta u ah cabdirashiid oo arrin la xidhiidha ma jira cabdirashiid cali shucaac ma jira dad baraha bulshada aad uga hadla oo cabdi ilay sida uu doonayo yani ka iibiya fikradiisa ma jiraan arrinkaa bal nooga waran kolley waxyaaba badan baad og tahay oo ku saabsan dowlad deegaanka ama meesha la yidhahdo soomaali galbeed dhulkaa la haysto ها ويجرى والله وأنا كفر حسنا فرصة هنا تسيسد ودي حسوسيد كلية فيسبوك لما شقالها وشقية معمول كيسة وحيكون قصبيين مالكي إن الدعاية مربى ووسو ليجو وأنا أيوكم فكر كودا كيني كرين ووسو قرب إن المال والبكاء حلام وأوفى فيها وحاجرة وكلا أو صومالي كلا أو مرايكن كي مالك الجرا والعقو سيو عدايمي لهايو لعقو كسيه إني أمانان دفاعان وح وسقفنا أي كشيان نحكي لا يوديان وحاجرة هو مر والبابا إسكنديجا أو ترجلي ووزارة دم سمستي براها برشلة هي بروباغندا ذكية أو بقولان قفاي كشقيسو مر وحيسوق هذا نيان مقعيو سومال لام بإسكنديجيان مركز أدو هذا الشيء adigay dambiye kale ku soo jeedinayaan ay koray Soomaaliland iska dhigayaan anu markaan hadlo waxay iska dhigayaan jabhada oo nala fookale oo Itoobiya la dagaalanta anigii bidacay ugu furayaan qofka xamar markuu hadlo xamar bay iska dhigayaan inta calanka Soomaaliya qaataan iyo wadaniyiin qofkii xamarka ay caynayaan marka waa istiraatiijiyad oo muddo ku shaqaysanay oo isticmaalo oo dadkii u shaqaynaya ay waraysan karno oo taalaba marka مشكلة نكن وحوي وحليه كلا ومجرم لما ميل كدسان وحوي دتك إنه عذابه وعقابه هي بروباغندا إنه سميست ميديا دعايات دتك كلا أفكار وقبته كلية معمول كيسو شقة كلا وما قبته هي حقيقة وحوي دتك إنه عذابه وعقابه وقف كي هاللي الكيس يقفل بعقابه إنه بروباغندا كسميستو ميديا وفيسبوك وهريو فيسبوك وغوريو إذا علاها كانوا لعقت السي مركا ويجرتا وين ويبدين ويبدين لكن بين هذا يوحي شيئا وحابريي تاسك أنا وكلا حقال كوا ماشي تجي صار كي أيا بريء أوروني بين الموضة قلان جاء الحق وزهق الباطل حقي ملكو يمد يضل من إلا شيء باطل كودي وسكبر براي تورنا ملا عبد الرشيد وحويه waa lagu maqlayaa yani waxaweye fariintaada waxaweye waxay gaaraysaa meelo badan bay gaaraysaa caalamka oo dhan bay gaaraysaa waxaa kaa jooga ehel baa kaa jooga dhulka cabdiilay kooxdiisu ay ka taliyaan waad hadlaysaa waxaweye arrimo aad u muhiima oo xasaasiya oo halisteeda ku yeelan karta ehelkaaga ayaad ka hadlaysaa arrinka maxaad ka oran lahayd حوية مركز قاركوت قف هذه وسنتضحية بحمين أما sacrifice ومد محروده وحن تصالح إنه كسو قاضي ويل ريد تونسا كعدون كعرب ربيع العرب وحكب له ذا ويل ريد تونسا أو الظلمية أو إسديلكس جوبي لكن وحوس سببي إن مجتمع عربي قاربضنا وكمدا حرية العريض المرادية مجتمع هدي ووضع حبصره وأمصه وسيدا الدكتاتور ربان أنا مركز نفط هذا يهل كي يقف كي أقول ريي sacrifice وسميمي أما صومالي كالبيت أما عالم كأما صومالي كله وحن ديار واحد إن sacrifice وسميه ظلمك يتعدي أنت على يدك الوهايو سيد لقى قاعد لها وإنه يستاجي أفري لواتن ساعة وحكى لك مشقيه
inaan dadka dulmiga uun sidii looga qaadi lahaa iyo waddo kasta iyo jid kasta aan u maro ayaan go-aan ku gaadhay insha allahu tacaala waana ka guulaysan doonaa waana ku guulaysan doonaa miyaad nala wadaagi kartaa dabcan haddaynu u noqono dhulkii muxuu ahaayey soomaali galbeed waxaa jira in baa jirta fulisa oo howlgalka tacadiga xadgudubka dilka tacdiibka la isku cadaabiyo jeelasha horseed u ah magacyo ayaa jira maadaama aad deegaanka ka soo jeedid xog maxaad ka haysaa magacyada iyo dadka muxuu ahaay xagga hore ku jira sumcaddoodu aanay hagaagsanayn mujrimiinta ugu waaweyn marka hore waa qaraabadiisa ninkan waxa weeye dhaqamada maafiyada maraykanka iyo talyaaniga lagu yaqaano waxay ahayd waxaan family ahay ma aaminaan oo family business way markuu dhaqanku mujrim yahay ama gangster dadka kale ma aaminayo hadduu xataa dambiye sameeyo wuu xidhaa laakiin kuwa ugu caansan ee dambiyada la galay waa isaga oo mujrimka maskaxda ay ka soo fulayso xumaatada oo dhan iyo ciqaabto waxaa ku xiga cabdiraxmaan generaal cabdiraxmaan laba goole oo ah mujrimka labaad hoggaanka nabadgelyada taliyaha ciidamada liyu booliiska isku ah waxaa ku xiga cabdiraxmaan walaalkii oo deeq laba goole la yidhaaho mujrimka saddexaada oo wasiirka madaxtooyada ah waxaa ku xiga mujrimka afraad mustafa ilbir oo sanyaro ku magac dheer cornel mustafa la yidhaahaa oo staafkiisa iyo ciidanka jigjiga haysta assassinationkana u xirsaaran waxaa ku xiga cornel mukhtaar sheekh suubane oo ah ninka sirdoonka liyu booliiska u qaabilsan ama jawaasiista ninka madaxda ka ah sirdoon bay yidhaahaan ayagu maarajaa bay ku magacaabaan waxaa ku xiga mujrimka kale ninka dembi baarista kilalka u qaabilsan oo asaguna in adeerkiya oo shaafi tayib la yidhaaho shaafi tayib waa cornel shaafi tayib baa la yidhaahaa waxaa ku xiga cornel cawke oo ku-xigeenka sirdoonka ah oo asaguna in adeerkiya waxaa ku xiga wasiirkaad hadda ka dhawaajinaysay oo walaashii uu qabo oo khadar cabdi ismaaciila oo mujrimka kala mujrimiinta ka mid ah oo dadka soo xidha ciqaaba mas-uulka ah waxaa ka mid a mujrim kale oo la yidhaaho cabdirasaaq saxane oo maanta ugu dambeysay wiil maraykan jooga aabihii cadaabayay cajalada ka duugay ciqaabayay cabdirasaaq saxanaa la yidhaaha mujrimka kale ee kuwa xabsiyada dadka ku cadaaba waa cornel shamaaxiye aan idinka sheekeynaya nin aan naxariis lahayn oo ilaahay uusan u dhalinin oo asaguna in adeerkiia isku guri ay kusoo koreen waxaa ka mid a cornel xasan dheere oo asaguna in adeerkiia waxaa ka mid a cornel deeq jirri oo in adeerkiia waxaa ka mid a cornel nasrudiin canab oo ay ilmaadeer yihiin oo liyu booliisa wakaalado kalena haysta waxaa ka mid a cornel xamse canab oo asaguna ay nasrudiin walaalo yihiin oo ilmaadeer yihiin waxaa ku xiga saraakiisha kale ninka maxkamadaha haysta ee dadka 20 sano 30 sano ugu xukuma oo in adeertii qaba oo waas shaarib la yidhaaho maxkamadda haysta waxaweeye qof tusaale yar baan kusoo qaadaya gabadh baa maandhowed 4 sano lagu xukumay waxaa loogu xukumay waxaa layidhi nin ay dileen oo sheekh deeq la yidhaaho yaa bacda sana ayay gabadh South Africa joogto oo walaasheeda uga taxsiyeysay bacda sana markii ninkii dileen sanad kadib iyo gabadh walaasheeda oo South Africa jooga uga taxsiyeysay 4 sano lagu xukumay ninka ku xukumay maxkamadaha u haysto waa seedigii waana ma aragtay waa ragga waxaa ka mid ah oo maskaxda la talisa ah habka cadaabta iyo ciqaabta ruuska ku soo baratay cornel cirro nin la yidhaaho reer somaliland way garanayaan NNST dowladdii siyaad barru haysan jiray gobollada waqooyi ninkii dadka ku ciqaabi jiray way hargeysa cornel cirra la yidhaahaa hargeysa aad baa looga yaqaanaa asagana adeer buu yahay waa la taliyihiisa koowaad nidaamkan ciqaabta iyo xaburinta ruuska ku soo bartay ee ninkan u akhriyey buwaagta wiilka yarkaa mana aqoonin dhagax buur buu ku koray aqoonna uma lahayn habka ciqaabta iyo cadaabta iyo dadka loo xaburiyo ninka kula taliye ee baray cornel cirra la yidhaahaa NNST Soomaaliya ka tirsanaan jiray gobollada waqooyi buu u xilsaarnaa jiray haddana jigjiga ninka kula taliye way habka loo cadaabayo waana adeerkii marka haddaad dhismaha fiirisid maamulka dhan ee meesha ka jira gebi ahaan waa qaraabadii xataa ninkaas waa ninka ka xishoon waaya xaaskiisa weyn waa xildhibaan baarlamaanka federaalka
xaaskiisa weyn waa xildhibaan seedigii xaaskiisa la dhashay maayarka magaalada wajaale xaaska weyn yaa eedo waa walaalkeed baa dhalay xaaska yar walaalkeed waa khadar cabdi ismaaciil walaalkeeda kale waa wasiir marka ilyaas cabdi ismaaciil baa la yidhaahaa adeerkeed waa wasiir baashe cabdi ismaaciil baa la yidhaha marka dowladda iyo maamulka oo dhan waa seediyadii iyo ilmaadeeradii iyo kuwaas waxay sii qaraaban yihiin marka waa cusbo ama group mafia family oo kale ah mafia family oo kale ah ayakaa wada shaqaysta ayakaa dadka cadaaba ayakaa isu xira soomaalidii kale deegaanka deganeed iyo dadkii kale matalaad xataa waagii hore ay ku heli jireen iyo beelnimada kuma helaan marka waa uu familiga iyo cadaabka ka dambeeya iyo tacdiibka mujrimiinta ugu waaweynna waa cabdi iyo cabdiraxmaan labagoole mukhtaar sheekh suubane deeq buraale ama labagoole cabdiraxmaan labagoole samaaxiye mustafa ilbir khadar cabdi ismaaciil mujrimiinta ugu waaweyn ee dadka laysa ee xabsiyada ku garaaca ee ku ciqaaba ee liyu booliiska maamula waa raggaa weyn cabdirashiid waxa weeye gabagabadii waxaan doonayaa inaan muxuaha ku weydiiyo maxaad aad ku soo gabagabayn lahayd ee aad ilowday yani ereyga ugu dambeeya haddii aan ku siiyo waa mid ku furan maxaad halkan ka odhan lahayd بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين dadka muslimiinta iyo Soomaalida ah nabiga waxa jira xadiis rasuulku wari عليه الصلاة والسلام muuminiintu waa sidii hal jir oo kale ama jasad oo kale qayb kamid ah hadii xanuunsato tacaata lahu saa'irul jasadi tadaa lahu waxa jirka kala u damqanaya jirka kala u damqanaya kaliya inaynu muslimiin wada nahay maaha Soomaali baynu wada nahay isku af baynu ku wada hadalnaa qaraabo iyo ehel baynu wada nahay labada dhinba ama Somaliland degano ama Puntland degano ama Soomaaliya degano dadka walaalihiina meesha lagu ciqaabayo waxaan ka codsan lahaa Soomaalida qof walba waxa uu u tari karo ama codkooda maadaama ay hadli karin inuu codkooda noqdo uu dulmiga lagu hayo adduunka sii gaarsiiyo Soomaalida kale uu sii gaarsiiyo wixii uu ku tabaruci karo dadka ka soo qaxay ama Hargeysa ama Boosaaso ama Muqdisho ku sugan ama Djibouti in loo arxamo dhibka ay ka soo qaxeen la dareemo aan la cunsuriyeynin lala mataqaanaa qofku uu tacaatuf loo muujiyo midda kale ka codsan lahaa waxay tahay ظالمك dadkiisii saa u dhibay iyo kuwii dad ugu xigay oo aanu kamid ahay qabiil ahaan hadii la yiraahdo cid igama xigto ظالمك sida u galay dadkii dad ugu xigay idinka naxariis idin ma sameeynayo marka walaalayaalo ha taageerina xafladiisa ha tagina shirarkiisa ha tagina iyo meeluhu dhaantada ku tumanayo dulmigiisa iyo dhibkiisa cid walba oo aragtaan gaarsiiya garab ha u noqonina والله هادو كوي أحيجي وساء وقلي إيش مجالده كي يمادين وأنا أنو كميد هاي إنه نقفر جيسة كي يمد أما جروة أما مقدشة أما كسماية أما مالكلة أما جبوتي إنه نحرس وسميرين مال حرن وسجيرين مركا ضدك مسلمين بين إسرائيل نهاي الصومالي بان نهاي هدي هذا وحبة أتري كرين ضدك الصومالي كالبيت روكا كل بان لبعتها وجيسنين ظالم كاسنا هكو تاجير انت ما ديلا اد بان ما سنتاي waxaan kaaga mahad celinaya Cabdi Maalik waraysigan insha Allah taala kuwa kale badan iyo xogo badan oo kula wadaagi doona maadaama media xorta ah qofna aan maartay u xidhnayn aan ka cabsanayna tahay aad baan kaaga mahad celinaya waadna mahadsantahay هذا يد ما سنتهاي انتنا داونيسا كاس wuxuu ahaa Cabdirashiid Cali Shucaa oo ka soo jeeda deegaankaas gaar ahaan qabri dahar ayuu ka soo jeeda waxaanu ku nool yahay dal ku yaala ama dal kamid ah dalalka Yurub waxaanu kamid ahaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay kadib markii uu hadlay oo baraha bulshada kaga hadlay tacadiyo iyo xadgudubyo loogu geysanayo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Soomaali galbeed dhulka ay Ethiopia haysato ee Soomaalidu leedahay
waxa uu inoo sheegay cabdirashiid in lagu dilay ayeydii qaar ka mid a eheladiisuna ay ilaa iyo hadda u xidhan yihiin in kale oo aan xidhnayna ay halis ugu jiraan in la dilo iyo yani in la xidhoba cabdirashiid wuxuu go'aansaday sida aynu maqlaynay inuu muxuu ahaye aanu aamusin oo uu yani noqdo uu nafta u huro dad badan si ay u noolaadaan uu noqdo tadxiya cabdirashiid wuxuu ka hadlay xadgudubyo badan oo ay ugu muhiimsanayd dadka halkaa ka soo jeeda deegaanka ka soo jeeda oo ee qurbaha jooga eheladooduna ay joogaan dalkii ay joogaan gaar ahaan Soomaali galbeed cabdi ilay maamulkiisa ay hoos yimaadaan dadka dabadda jooga awood uma laha inay hadlaan haddii ay hadlaanna waxaa laga jarayaa ehelkooda gudaha jooga waxaana lagaga jarayaa dil iyo xadhig taasoo sababtay inuu dulmigii sii baaho oo ay aan la maqal dad badan oo dulman warkooda waxa uu kaloo xusay cabdirashiid cali shucaa warbaahinta Soomaalida heer caalami iyo kuwa ay Soomaalidu ay leeyihiinba inaanay arrinka ama tacadiyada ka dhacaya dhibaatada uu geysanayo cabdila iyo kooxdiisu ay geysanayaan inaan diiradda la saarin halka ay diiradda ka saarayaan arrimo badan oo ka jira meelo kale laakiin halka Soomaali galbeed indhaha way ka dabooshaan ayuu sheegayay isagoo arrimo badanna muxuu ahaay ku sababay iyagana way sugaynaa inay muxuu ahaay ay ka jawaabaan iyo magacyadii ku soo arooray barnaamijkan xaq waxaanu u siinaynaa haddii ay wariyaal yihiin muuqbaahiyayaal culimo waxaanu u siinaynaa xaqa jawaabta inay ka jawaabaan eedaha cabdirashiid cali shucaa uu soo jeediyey insha allah qaybtani waxay noqonaysaa qaybtii koobaad ee aanu ama waraysigii koobaad ee aanu la yeelano cabdirashiid cali shucaa waxa ay tiri doonta qaybo kala duwan oo aanu idin ogeysiin doono goorta ay noqon doonto waad mahadsantihiin waxaad ila socodsiinayey cabdi malik sheekh muuse coldoon wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waad mahadsan tahay cabdirashiid وعليكم السلام. أدبا ما سنتي.